وبركاته وعسلام دمان هذا ريال وجالس كسودان كشيف كدمان عقاش مشان فديدا أنا مجاي وحلا عبد الفتاح محمد حسن حكم إذا دانيرتا بشهر يكونوا مجالين وحنا كم دهان شري تاليد أنا هذا كليب كان كصعدة ودن كزامبيا وورينا وحسلام قدوميها تاليد مدن هيران وقدومي كحجان ك أبتاع الباشي هذه وحلقة وحنا قصوا سلامنا تشبلان صوماليا dadka Kismaayo dadka halkan fadhiyo waa ehelkii qaraabadii dadka Kismaayo degan waxay u badan yihiin xoolo dhaqato dadkeena xoolo dhaqatada arin ku soo cuslaatay oo ay qaadi waayeen ayaa halkan isku imaanay ina baahidooda soo gudbino maadaama maanta ay Soomaaliya ka jirin dawlad baahida jirta oo la cararno isla markii soo jawaabaysa dadka waxay ku nool yihiin isku tashi ku nool yihiin marka dadkan dadkoodii halkaas ku nool oo aniguna aan ku ogaa dad ku ladan oo ma sha Allah ku fiican ba klibkan fariintan halka u marinayna in dad badan oo xoolo dhaqata xoolihii iyo dadkiiba maanta ay naflacaari yihiin hadalka inta badan waxa u deyn doona odayaasha iyo uqaasha hogaami waxaan ahay nabadoon Cabdi Xasan Cusmaan harti waxaan ka saaxiibay Nuux Ibrahim waan salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi aan ka cabanayno abaar ka jirta Jubbaland dadku wuxuu badan yahay dad xoolo dhaqata oo u badan lo'diina waa naga wada fariisatay waxaan doonaynaa gurmad degdeg ah in loo soo sameeyo dadkaas baadna ma haystaan xooluhu biyana ma haystaan waxaan indhahayga saaro aan dib liigu qoreen lo 10 gaarayso oo xaro cunayso xaro waxay qaadantay weysay marka baahidaas aad u fara badan baa jirta Allahna barakeeyo waa salaamina kulli waxaad ka qaban kartaan ka soo waxaanu maaragtay ka cabanaynaa anagoo beesha artiga Kismaayo abaar maaragtay dadkii maaragtay baabiisay oo xoolihii ka dhamaysay oo waliba baahashii loola ahayd ay maaragtay dhamaatay baanu maaragtay ka cabanaynaa waxaanu maaragtay u cabanaynaa jaaliyadaha beesha arti adduunka meelay doonaan ka joogeen baanu cabanaynaa waxaan rabnaa si degdeg in naloogu soo gurmado baan rabnaa haddii alla yiraaho gaar ahaan waxaanu ku hormaray jaaliyada maartay Zambia ee beesha harti waxa weeye si degdeg ah waxaan rabnaa in loogu soo gurmado wassalaamu alaykum maanta halkan waxaan isugu nimi kulan oo sababay arrimo duruufeed waqtiga aad u kululaaday jiilaal kulul oo ka dhacay dadkii miyiga aad iyo aad ay u dhiban yihiin waxaanu rabnaa horta marka ugu horeysa inaan Ilaahay barino oo aan weydiisano raxmadaas baahida ka biin karto ciidan Allah ahayn baahida ma biin karo marka ugu horeysa ummadda islaamka meel kasta joogaan gaar ahaaneed ummadda harti waxaan Ilaahay ugu baryeynaa in iyaguna noo soo duceeyaan anaguna aan duceysano in Ilaahayna qaboojiyo deegaamada Jubbaland sanadkan waxa ka jirta jilaal aad u xun inta ka gadaal halkan waxaan baaq uga marinaynaa anagoo ah ismada nabadoonnada beesha harti oo aan ka mid ahay waxa ka jirta jilaal aad u daran xoolihii ee aad u liitaan waliba xooluhu si kala jiraane lo'dii aad u liidataa waxaan idin leenahay beesha harti jaaliyadaha beesha harti kamid waxa beesha harti u baahan tahay gurmad qaran in loo soo gurmado waxaan idin leenahay tacaawinu cala albirri maanta wala tacaawinu cala al-ismi wal udwan maanta waxa la taagan yahay oo baahida ugu badan tahay in la isu gurmado oo dadka miyiga jooga oo maanta abaartu hayso oo biyo la'aantu hayso oo xoolaha baad la'aantu hayso wixii loo qaban karo inaan laga hagran dadkiina maanta Ilaahay wax siiyay ama dal ha joogeen ama dibad ha joogeen intaasaan anu ku soo koobaya waana idin salaamayaa yaashan maantay waxa isu keenay oo aan meeshan u fadhinaa qaylo dhaan way arrinaan hadda ka hor la qaylin jirin weeye haddaan nahay beeshaan wax badan arrimo kale
maaragtay aan ka wada hadalay laakiin arrintan aanan u soo caban waxa weeye dhibaato taagan dadkan waxay u badan yihiin meeshaan joogaa dad xoolo dhaqato ah weliba waxay dhaqdaan oo xoolaha ugu badan jubbada hoose waa la yaqaana lo-da weeye maantay gurmad haddaan la helin oo gurmad ilaahay baanu baryeennaa marka koowaad marka xiga haddaan dadkaas dadkii u dhashay oo meel walba jooga aysan u soo gurman waxa weeye rajo badan lagama leh xoolahaas annaguna waqti aan waxba la qaban karin inaan qaylinoo nidhaahno dadkii waa cayroobi waxaanu door moodnay waxaan qaban karray wax allaale waxaan qaban karray waa qabanay biyaa loo baahan yahay baad baa loo baahan yahay dadkii baa baahan xoolaha la masruufaa sidii dadkii baa xoolaha loo masruufaa raashin baa loo gadaa caws baa loo gadaa maxaan kuu sheegayay dhibaatadaas intaa miisaankeedu leeyahay baa naga qaylisiisay haddee hebel iyo hebel lama leh ninka annaga halka doolar maantayna siiya $1 ninkana siiyaa wuxuu noo yahay ehelka iyaga ah dadkaas gacalkaa gacmo u waabana haysataa annagu waxaanu u qaban karro male waana joognaa dadkii madaxda u ahaayo ay fiirsanayeen baanu nahay annaguna tolkayaanu u cabanay intii nin dhibtay nimanyaal ma dhibto waxaan idinka rajaynaynaa inaad ajiibtaan baaqayagaas oo ka soo jawaabtaan beesha harti meel kasta ay joogaan jaariyadaha beesha harti waxaan u soo gudbinaynaa kaliibkan baan u soo gudbinaynaa anu caddaynayno dhibaatada ka jirta Jubbaland abaar ba'an baa ka jirta Jubbaland oo dadka halkan jooga oo reer Jubbaland ay u taagwaayeen dadkii reer miyiga ahaa ee xoololeyda ahaa ee loolayda ahaa loo u badnaa dhammaan dadkaas abaar baa ku dhacday gugii lama helin beertii lama helin caws baa la waayay cunaa la waayay biyaa la waayay waxaan jaariyadaha beesha harti meel kasta ay joogaan ugu baaqaynaa dadkaas maanta gurmad bay u baahan yihiin in loo soo gurmado naf iyo maalba in loo soo gurmado dadku loole bay ahaayeen lodii 85% waa dhimatay dadkuna 85% loole bay ahaayeen lodaas khadka waa ka baxday xoolo kale dadku haystana ma jirin miigaas loodaas lagu haystay caruurihii iyo haweenkii iyo dadkii lodii markay dhaaftay ayaga laftoodii baa isku dhex daatay oo soo xarooday dhibaatadaas ka jirta Jubbaland Kismaayo waxaanu jaariyadaha beesha harti ee adduunka ku kala fidsan ugu baaqaynaa dadkaas in loo soo gurmado dadku aakhiro wax suma taray adduunku wax isu tara maanta waxa nool in la badbaadiyo oo loo gum ilaahay baa wax badbaadsha in la badbaadiyo oo loo soo gurmado oo waxa dhiman in bal isku dayo in la badbaadiyo oo loo soo gurmado beesha harti meel joogaan ba waxaan ugu baaqaynaa inay gurmad sameeyaan ee dadka reer Jubbaland ee abaartu ku habsatay in loo soo gurmado baan soo gudbinaynaa waan u baaqaynaa annagu haddaanu reer Kismaayo nahay wax kasta oo aanu qaban karay waa qabanay laakiin waa naga badatay waa naga ballaaratay waxbaanu tari weynay annaga lafsiyeeda abaartu waa nahaysaa waa nagu dhacday mar haddii miliga abaari ku dhacda sheegeen insha Allah waxaan idinka sugnaa waxa weeye arrinta odayaashu idin sheegeen waa dhib jira waa dhib meel kasta ka jira oo deegaanka Kismaayo area Joore aad dhib ka jira weeye marka insha Allah waxaanu war badan waa laga fiican yahay waxa gurmadkaas oo in loo soo gurmado arrintaas arrin muhiim ah weeye tolka degmadaha jirana waxaan ka rajaynaynaa inay hawsha ka qayb qaataan meel kasta ay joogaan waxaan leenahay ka qayb qaata idinkana ajar baa ka helaysaan waxa weeye qofku waxa weeye mudana waa ku noolaanaysaa maanta waxa baxsato waa wax ku ah walahu waxaanu gargaarka weydiisanaynaa waa ilaahay inta kadibna waxaanu rajaynaynaa cid kasta oo ehelno ah in naloo ka garaabo arrintaas waxna nala kala qabto wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka horeysa ilaahaygiina abuurtay oo koonkaana keenay baan weydiisanaynaa inuu abaarta naga saaro oo dad baryadiis iyo baahidiisba naga kaafiyo allaan weydiisanaynaa taas intaa ka bacdi dadkan hadda ehelka halkan isugu yimid waxay maanta inuu soo jeedinayaan dadkii ehelka ahaa oo xoolaha dhaqanayay ama loo ha noqoto ama geel ama ari inay xoolahaas u daadsan yihiin oo caws iyo biyo la'aan iyo baad la'aan ba yihiin marka ninkii hadda wax baxsadana hadda ilaahay dartiis wixiisa waxbaa ugu barakoobaya ilaahay idankiis marka dadkiina inaad usoo gurmataan
oo aad wax tartaan baan anagu intaa hadda aan u qabanayna intaanu hadda matalan istimaatinkayaga marka guulaystaan in leenahay in badan ninkii wax qabtay kan wax qabanba ilaahay idankiis dadkiina u soo gurmadaan in leeyahay insha Allah weeska guud oo beesha harti waxa weeye ilaah baa mahad iska leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaah baan u mahad celinaynaa goor kasta ilaahay baan waxay weydiisanaynaa inuu abaarta iyo dhibaatooyinka jira inuu ilaahay naga saaro waddanka sanadkan waxaa weeye gugina lama helin daartiina weli ma da-in daartii horena abaar bay aheedoo waa roobkeeda aad buu u yaraay waddanka aan joogno magaalada Kismaayo aageeda waxaa ka jira dhibaatooyin badan abaar badan baa ka jira xoolihii dadka waad garanaysaan oo dadka reer waamaha waxay u badnaayeen xoolahooda loodii abaar baa ku fariisatay xoolihii hadda xoolo badan baa laga tagay dadkii baaba hadda halis ku jira waddankii biyo la-aan baa ka dhacday baada-aan baa ka dhacday marka waa cabasho waxa aan gudbinayno ilaah baa loo cawdaa marka ilaahay waxaan horta weydiisanaynaa roob soo degdega oo dadkaa nooleeya oo lagu dega inuu ilaahayna siiyo kaas ilaahay baan weydiisanaynaa waxaan kaloon tolkaayna weydiisanaynaa odayaasha waad maqlayseen nabadoonnadii iyo caaqiliintii iyo isimadii warkooda waad maqlayseen waxaa loo cawanayaa maanta tolka jaaliyadaha beesha hadda aan halkan ku fadhino oo beesha harti meel kasta oo joogaan waxaan leenahay anagu qoladayna Kismaayo aad dadka jaaliyadaha iyo wax uga raaraadsada ma nihin in badan lama hadalno maanta waad aragtaan oo odayaashii waxgaradkii raggii dadku u sasareeyay baa halkan fadhiya waa idinkala maarin waayey abaar xun oo idinkala maarin waayey baa dhacday waxaan idinka codsanaynaa inaad codkaynaas aad dhegaysataan aad u dhega nuglaataan aadna wuxuu ilaahay idinka soo qaado aadna soo gaarsiisaan xoolihii waa baaba'ayaan dadkiina waa ku daba dhimanayaan hadda waad garanaysaan abaar hadday dhacdo xoolaha kelimahe dadka halis galo dadkii baa halis ku jira ilaa xoolihii oo noolna qofka kama tegi karo meel ay wax ka cunaanna male xoolihii meel ay wax ka cabaanna male abaartaas oo baahsan oo magaala Jubbaland oo idin hadda ka jirtaan hayso